cabdi good abees oo kamid ah wariyaasha ugu caansan guud ahaan geyga Soomaalida oo si gaar ah ula hadlayay telefishinka Star magaalada Hargeysa ayaa waxa uu soo bandhigay cadeymo ay dawladda Djibouti ugu soo hanjabtay waa sida uu hadalkiisa u dhigay waana kan isagoo arintaasi ugu horreyn ka hadlaya saaxiib aad baad mahadsantahay waxa aan saaka marahay 8:32 daqiiqadood saacadeena Hargeysa iyo 11:58 daqiiqadood saacadeena Hargeysa la soo kala diray laba fariimood oo WhatsApp-ka oo runtii Djibouti la iiga soo diray oo marka la iigu hanjabayo codadkana waa sidii doontaan waan idisiyay la leeyahay marka ama ninkaas uu helay xogo ama siro culus oo ka helay sirdoonka Djibouti oo marka iigu hanjabayo in Hargeysa la iigu dilayo oo ama gaari la jiirsiinayo ama xabadinta la iigu dhufto magtayda la dul saarayo cid kalena aan ii dilaynin ay dilayaan aniga cabdi good ahaan ay ii dilayaan dadka reer Soomaaliya oo wax buu yiri shaqaale ilaa shaqeeyadahiina ayaa lacagtayda loo ku shaqeeyay buu ama Ismaaciil oo magaalada shaqeeya Idris Umar Geela ayaa gaadhiibuu ku leeyahay marka Ismaaciil Umar Geela kama hada dadka oo dilaa walaay billahi tala ayaan rumaynaayo ku dhaaranaya uu leeyahay waxaan helay warka xalay mikadan waad arkaysaa Umar Bashiir waxa helay waa digtayradii joogay meesha intuu 2 sanadood intuu inqilaab ku qabsaday inqilaab laga qaaday kii kale laga sii qaaday adigu dictator baan sheegay hantida reer Djibouti ee maqan na waan sheegay aailada ku amar ku taaglaysa meeshana waan sheegay intaas midna been ma adduunka xitaa qaraaya maxaadin Umar Geelo wax uga hadashay ba aniga sidoorka in Umar Geelo ii soo diriyay sidoonkiisii oo leeyahay Hargeysa ku dil war dhagaxyo soo daaday waxba la hadhin anigu Hargeysaan joogaa Soomaaliland baan joogaa nin sidaa ku cabsida meehi naftu marbay baxda Ilaahay ba mar qaada naabaalo iyo missile balintaad igu soo hogaamisay imika satellite missile guided bal aniga madaxayga ka dhufo nin sidaa ku cabsida meehi waa dictator Ismaaciil Umar Geelo ana aaminsanta inuu dictator yahay aailadiisu meesha ka shaqeyso waxaana ku cadeynaya example hanjabaadani taradkan leeyahay Isaaq iyo Samaroon oo u shaqeeyay in Umar Geelo oo reer Soomaaliland dhexdeeda kugu dilaayay si kale wuxuu dilaa islaali waan ku baqaya warnin sidaa ku baqameeyay in la iibsadana ma ihi war maanta hadaan duro u dhinto waan aqaana godobteeda reer Soomaaliland halkay u raacayso hadii duro ay dilo ama aan iska u dhinto dee codadkan imika la soo deynayaad ka dareemaysaa hada erayga eray ma qaado maxaad ina Cismaan Geelo Arab ugu hiilisay oo ina Cismaan Geelo Arab miyaan wahay nin ka soo caray sida ka loo eriyay buu aan la doonayaa maxaad uga hadashay أنا عثمان قال أنا بقدرتي أنا يطلع وأنا كهضية هدو دلمية هنا وهدو دلمية كسي وضنا وانقماني هدو دلمية هنا وأنا هضية إمي كذا نريد ما يلبس إن عمر قال إن عثمان قال عرب أنت هرجع سلك عيش بوت لجين ما يتو ما يدد بري إمي كذا أنا لا يهرنا وأنا إري محكمة هذا شرع جوحي كل يهم بنجيد كل يهو هالكذا لكن ما حد جوه هذا الشوارع إمي كانوا هضية إمي كا تو ما يدد بري إن لقاضو عقلي Djibouti ku haya uu ku haya lacagtiina uu haya halkan company uu ka sameeysanaya hadii ilaahay ilaahdo aniguna waan hadli intaan oo leesanteedu qoyan tahay wax qalada waan ka hadlay qaranka Djibouti baa la dhacay baan ma wax kalaani maamulkeena Umar Geelo wax ka sheegay Djibouti wax ka sheegay yaan caay yaan maagay waxa la igu dilay qaranka sirdoonka Djibouti oo dhimay Hargeysa u yimaade ee fariimaha la igu soo dirayo filim baan maqli jiray nin cowboy oo filimka magaciisa garan maayo wuxuu haban u leeyahay dabaarda agla and magaranaysa good uu leeyahay intuu ninku u hanjabay isagoo baatir ku jira ayuu tooganaya markaa soo wuxuuna if you want to shoot but don't talk boranaya war meelahan cabsi waa threatka ma ogtahay hada jeer dictatorka do ever what you want samee waxa sameynayso ti ilaahayna meel bay taala laakiin sidoo kuma cabsado la iguma hanjabo maxaan kale oran karaa maanta hadii hid ilaahay aanu dhinto godobtayda Somaliland way taqaana halkay u raacayso waa codad xaqiijinaya qaabkii loogu soo hanjabay Cabdi Good Abees oo sida codka lagu sheegay in dawladda Djibouti lacag ku bixiso dad jooga Somaliland sirdoonka Djibouti oo dhanna sirdoonka Djibouti Hargeysa wada jooga u dhanyiin waliba waqti xaadirka ma ku sheegay sirdoon kalena ma aha وسمرون إلى إساق والله وبالله وتالله كتاب جامعة كل عربية سمرون إلى إساق
hargeysa wada joogaan maanta kuwada dhanyihiin magaran waxaan kuu sheegaya anigu sirtaa waa helay wallaahi baan kuma sheegay xalay baa laga sheekeynaya kooda adiga gaar ahaan is ilaali horta haddaad gashay laakiin walaalkaa baa lagu samaray walaalka ayna good abees baa lagu soo dhex maray baan qoro biyo hagaaga loo dhiibi ismaaciil cumar kama hara qofta isagoo ka argoosta maahane magaran waxaa doontaba ku hadashay cabdigoodow isilaali waxaa doontaba ku hadashay isilaali baan ku ilaa odayii dhintay idris cumar caydaya isilaali wala isaaq ma xishootiin leen isaaq oo dhan baa u shaqeeya isilaali lacagteedaa loogu shaqeeyaaye isilaali sax intaa baan ku odhanayaano wallaahi wabilaahi watallaahi isilaali isaaq oo dhan baa u shaqeeya warkaaga anu kuma daawan ninbaa saa lahayo sayno maxay ama information aan helay weeyaane isilaali sax taa ogsoonow inuu isaaq oo dhan u shaqeeyo intaa shaaqeedihiina u shaqeeya ismaaciil cumar saa wada garan oo bashaar qaata dhanka sirdoonka ee isilaali baan ku odhaano xabad baa kuga fakara ma baabuur baa lagu jirsiina isilaali amaraya adhowna agsidaan baa lawada lagu duldhigi magtaadana nin laakiin maamul haya ay iyo wanaagba wuu u koray kursiga haddaan idhi waa dictator oo afar madaxweynaha Soomaaliland iska bedelayeen ayuu isagu taagnaa ma beentayba inuu sharciga bedeshay oo doorasho ku yimid ma beentayba aanu doorasho ku imanin adeerkii xasan gulad abtidoon keenay meesha te ummadda ilaahay oo dhan baa og war waxaana waliba waxba ka sheegin 24 nin oo containerka ku riday markii SNM dagaalamaysa ee Djibouti ku dhintay jinacsi meesha lagu yiraahdo la yiraahdo doqoshi 90 nin ee isku reerka ahaa ee korneelkii ku jiray ee lagu aasay ee ilaa imika xabaal wadareediya ayaanu soo wadnaa iyo halkii ku aasanaynoo sawir ka soo qaadnay cabdigood abees ayaa sheegay halka laga raacay ee sababtay in sirdoonka dawladda Djibouti ay u soo hanjabaan hada ay sheegi soo naga nimka aragnay laba program baa sameeyay markuu Cumar Geelle uu fanaaniinta kaxeeyay dawladda jaarkana inuu Soomaaliya iyo isku xilkeen iyo walaaltinimadeeni bariga hore shaqayntii weeday ayaan ka hadlay mar labaadna waxaan ka hadlayo in dictatornimadii in Cismaan Geelle Arab waxaana nidhi mahmaadee Soomaaliyeed bay hay'ad dadku ma inay ereyga anigu aan leeyahay moodeenay deesheedii labada gelin mid soo qaaw reerka imika leeyahay labadiiba wad isqaawis tasbiixi wallahi baan hadaba yeelaynin wax xanuun badanta imika aan ku sheegaya Ismaaciilo imika isu soo anaga isu kaayso qaawis labadii gelin bay waxaad ka heshaabadna leedahay digooda waraysigiisa ku dhex jira ayaa telefishinka Star weydiiyay in markii hanjabaadu soo gaadhay uu la socodsiiyay dawladda Somaliland waxana uu yiri sirdoonka qaranka Somaliland baan u yeeray waan u diray codadkii wax walba way haystaan TV-gana waan iga u yeeray oo imika daqiiqado ka hor markay fariimahan yimaadeen nin suxufiya baan ahay waxba ku faani maayo suxufinimada laakiin waan aqaan weygayga qaranka Somaliland iyo dawladda Somaliland gacantan ka saaray wixii lagu soo hanjabay TV-ga caalamkana waan u sheegay wixii lagu soo hanjabo waan iga idin siiyay wixii oo dhan anigu waxba ma qariyo shilina ma doono lacagna ma doono leeyman iibsado qarannimada Somaliland waan ku dhimanaya wallahi billahi tallahi inay qaloocan Somaliland inaana qaadanayna waa sii deynaya oo laga sheegay niman kala iyaguna toosiga marka ay guulaadeen madaxweynaha gada maanto tiri madaxweynahan mujaahidka gaamuray armiyaan mujaahidan musabbix maana ka dhigay ilaahay abuurtay baa ka dhigay mujaahid siyaasadda ku gaamuray weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle run baan ku sheegayaa waanu ku daawanaya waanu ku ogyahay bal igala hoos baxaniga dhagaxyeynta adigu soo daadiso bal hergeysa iigu keen wallahi aanan ku cabsanayn qaran baan hoos joogaa iyaguna way ilaalada wadanka way wadaan annaguna waanu islaalina ina Axmed Cismaan Cumar Geelena run baan ku sheegayaa maxaad uga hadashay aan adna tareet baan ku siinayaa arsaga wax kaga qaadan dad wax ka qaadayso anigana midhigu ma sameyn karaysid Maxamed Farax Bile telefishinka Star magaalada Hargeysa